أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال ولالكن آدم نور حسن وحتى سوداتين كانال كان موقال برودكشن إن شاء الله موقال كان maanta diyaaleen waxaan rabaa inaan kula wadaago asxaabta jecel inay helaan buugaag free ama asxaabta jecel mar walba inay wax akhriyaan waxaan idinla wadaagi doonaa library online aad ka helaysid buugaag aad u fara badan insha Allah muuqaalkan maanta aynu ku baran doonaa librarygaas wuxuu yahay iyo sidoo kale buugaagta laga heli karo marka aynu gudgalno barnaamijkeena intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaan ka codsanaynaa kanaalka muuqaal production haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar videogana like saar bal isku daya muuqaalkan inaad gaarsiisiin 500 oo like waan idinkaga mahadcelinayaa insha Allah waxay noqonaysaa dhiirigelin ay noqonaysaa insha Allah bal muuqaalka like saara marka si aad u soo booqatid library-gan waxaad ka soo booqan kartaa marka aaladaad isticmaashid ama computer aad ka soo booqan kartaa ama sidoo kale mobile aad ka soo booqan kartaa marka waxaad soo furataa marka browser-ka aad jeceshahay soo furanaysaa waxaad soo booqataa marka shirkadan lagu magacaabo tutorial points aad soo booqan doontaa waxaan soo dhigi doonaa marka linkigeeda qaybta hoose video-ga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoon comment-igu hore aan kuu bin gareyn doonaa marka soo booqato shirkadda tutorial points-ka waxyaabo badan ayay qabataa marka shirkaddan tutorial points-ka koorsooyin ay iibiyaan marka almost anaga waxaynu u baahannahay library aynu soconaa oo buugaag free inaynu helno toolal badan way leedahay shirkaddan sidoo kale marka qaybtan waxaad ku dhufataa marka library aad ka dooranaysaa marka qaybta library marka soo dooratid qaybtan markaad fiirisin dhisida library-gan oo aad ku quruxda badan waxay ku qaadatay 14 sano oo welina mar walbana wax ay ku soo darayaan almost marka library-ga waxyaabaha qaybtan ka fiiriya marka buugaagta aad u baahan tihiin qayb title ay u soo sameeyeen computer science oo kale buugaag la halmaala data analysis-ka iyo waxyaabo web development markaad fiirisin oo kale hoos u soo socda way badan yihiin marka buugaagta ku jirta database waxyaabo sports oo kale digital marketing marka waxay u soo sameeyeen title-ka aad u baahan tahay ama buugaad raadinaysid qaybta kore aad ka fiirinaysaa asxaabta sidoo kale dugsi sariga dhigata oo kale meeshan waxaad ka helaysiin wax lagu magacaabo IAS exam kulley waxaan filayaa shirkaddan waxaan lagu leeyahay dalka Hindiya examkan waa exam dhankaas lagu galo waa marka meeshan waxaad ka helaysiin marka su'aalo iyo jawaabo oo waxaad ka helaysiin scientific aad ka helaysiin biology part 1 part 2 sidoo kale chemistry oo part 1 part 2 la physics geography waxyaabo badan aad ka helaysiin marka qaybtan aan u soo laaban doonaa oo aan tusi doona asxaabta dhigata dugsi sariga qaabka u isticmaal lahaayeen ugu horreyn marka buugaad u baahan tahay aad jeceshahay inaad ka akhrisatid library-gan aad dooranaysaa bal aan kula wadaago tusaale ahaan hadda waxaan dooranayaa course-gan ay ku qoran tahay computer concept buugan ayaan dooranayaa buugaad u baahan tahay markaad dooratid oo kale qaybtan sectionska uu ka kooban yahay aad arkaysaa buuga dhammaantiisa buuga aad soo dooratay marka waxyaabahan ku jecelahay tutorial points-ka qaybta library waxay tahay waa la soo wada koobay information-ka aad raadinaysid oo kale buuga markaad soo dooratid waxyaabaha oo khulaaso aad ka helaysaa oo la soo koobay tusaale ahaan waxaan soo doortay buug magaciisa uu yahay concept oo computer ayaan soo doortay oo beginners marka aksa sidaan intaad ka akhrisanaysaa buuga sidoo kale meeshan waxaad ku haysataa marka tusaale ahaan chapterska next aad leedahay mid walba intaad u gudbi kartaa waad u jeedinayaan filaa sidaan aad u akhrisanaysaa inta ay wada yaalaan dhammaan informationska intana waxaad ku haysataa marka page next aad ku haysataa marka shirkaddan tutorial points-ka qaybteeda library-ga sidaan aad u isticmaali kartaa buugaad u baahan tahay aad soo dooranaysaa waana akhrisanaysaa sidoo kale marka shirkadda waxyaabahan ku arkay haddii aad u baahan tahay page-ka waad daabacan kartaa oo banaanka waad u soo saaran kartaa tusaale ahaan introduction to computer oo qaybtan page-kan oo kale haddii aan u baahanahay qaybtan hoose aan soo soconaya haddii aan u baahanahay inaan daabacdo meeshan waxaa yaala marka qodob ay ku qoran tahay print page-ka hadda aad taagan tahay print garayso markaan ku dhufto oo kale print page marka qaybta printing markaa soo dooratid oo kale waad u jeedinayaan filaa hadda page-ka aynu taaganayn waynu daabacan karnaa oo caadi aynu soo saari karnaa marka shirkadda waxyaabaha ay ku fiican tahay ay ka mid tahay almost print hadduu kugu xiran yahay computer-kaagana waad daabacan kartaa ama haddii kale copy paste ood ku samayn karta inaad highlight garaysidna qaybta computer-kana waad u gudbin kartaa almost marka asxaabta aynu u laabano marka qaybta dugsi sariga aynu u laabano
marka sidoo kale asxaabta dugsi sare dhigato waxaad ka faa'iidaysateen examkan inta yaalo kulley Hindiya laga galaa ayaan filayaa maadaama shirkadda lagu leeyahay Hindiya UPSC gan tusaale ahaan biology aan soo dooranay ay ku qoran tahay biology part 1 biology part 1 aad markaan soo doorto oo kale note ayuu ku siinayaa oo aad akhrisanaysaa sidoo kale biology oo kale qaybtan wuxuu kugu siinayaa markaad soo socotid quiz aad gali kartaa laakiin su'aalaha si nafsi ahaan waad ka jawaabi kartaa laakiin jawaabahooda meesha ay ku jiraan marka soo wada fahantid dhammaan cutubyada meeshan ku qoran waxaad gali kartaa examkan aad gali kartaa oo quiz-ka ah quiz part 1 hadda markaan ku dhufto almost waad u jeedinayaan filaa su'aasha waa midaan waad akhrisanaysaa jawaabahana inta ay ku yaalaan haddii aad fahmi weysidna qaybtan show answer ayaad ku dhufanaysaa laakiin haddii qofka cutubyada uu soo akhristay uu ka jawaabi karaa show answer markaan ku dhufto automatically su'aasha jawaabteeda ayaa lagu tusayaa marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin saaxiibayaal inaad ka wada faa'iidaysan doontiin library-an aadka u quruxda badan linkiga shirkadda waxaan soo dhigi doonaa tutorial points-ka qaybta hoose videoga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoon comment ugu horreeyaan kugu biin gareyn doonaa buugaag aad u fara badan ayaad ka helaysiin meeshan ka faa'iidaysta walaalkiin aadam nur xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu